Lama amaanka ee Soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii dableydii ka tirsaneyd Al-Shabaab ee xalay ku qaadeen Hotel Aswayl ee magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay weerarkaasi in ay ku dhinteen 5 qof oo isugu jiray 3 rayid iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka. War-saxaafadeedkani ka soo baxay taliska booliska ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in la dilay dhammaan raggii dableyda ahaa ee weerarkaasi soo qaaday, kuwaasi oo tiradoodu boolisku ku sheegay 5 nin. Booliska ayaa intaasi ku daray in la soo badbaadiyay dad kor u dhaafay 8 qof oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha hotelka SYL ee habeennimadii xaleed ay weerarka ku qaadeen dableydin hubaysneed ee ka tirsaneyd xarakada Shabaab. Dadkaasi la soo badbaadiyay ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Weerarkaas ayaa waxaa mas'uuliyadiisa sheegatay ururka Shabaab. Hotelkani la weeraray SYL ayaa waxa uu ka agdhowiyay madaxtooyada Villa Soomaaliya, sida ay sheegeen taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sarreeye Guuto Saki Xuseen Axmed. Weerarkan ayaa bilowday 7 fiidnimo ee habeennimadii xaleed, waxaana ilaa xilli dambe la maqlayay dhawaaqa rasaasta iyo isweydaarsashada ciidamada ammaanka iyo dableydii weerarka ku soo qaaday hotelkani SYL. hubka kala duwan ay isweydaarsanayeen wariyayaal kala duwan oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen weerarkani xalay oo aad uga duwanaa kuwii hore ee Muqdisho uga geysan jireen xarakada Shabaab, kuwan oo lagu bartay inay ka bilowdaan baabuur ismiidaamin. Balse weeraradani xalay Hotel SYL ka dhacay ayaa ahaa mid aan la sheegin, isla marhaantana ay soo qaadeen rag ku labisan dariiska ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo markii ay gudaha u galeen hotelka rasaas ku bilaabay ilaaladii hotelka. Booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo dhigeen bogga Facebook ay ku leeyihiin taliye ku-xigeenka booliska Saki Xuseen Axmed ayaa waxa ay ku sheegeen in baara 7 fiidnimo ay qoladii nabadiidka ee weerarka ku soo qaaday Hotel SYL, iyadoona ay 2 ka mid lagu dilay hotelka banaankiisa, sidoo kalena labada kale haatan ay ciidamada ammaanka kula dagaalamayeen gudaha hotelka. Ilaa hadda waxay ciidamada ammaanka soo badbaadiyeen 82 qof oo ku jira shacab iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana aan ka digaynaa in xiriirka telefoonada la sameeyo dadka shacabka ee lagu tuunsan yahay in ay gudaha ku jiraan inta howlgalka laga soo afjarayo. Booliska ayaa xilligaasi ugu baaqay warbaahinta iyo shacabkuba in ay ka fogaadaan goobta weerarkan ka socdo sababo ammaan awgood. Hotelkan oo aad uga dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ayaa caan ku ah in ay degaan mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ajaanibka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u yimaada magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegayay in dad badan oo ku sugnaa xilliga la weerarayay hotelkani. Dad goobjoogayaal ayaa weerarkaasi ka badbaaday sida ay xaqiijiyeen. Goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarkaasi ka badbaadeen kadib markii uu bilaabmay dhawaaqa rasaasta ay maqleen ay ka boodeen darbiyada iyo gidaarka hotelka. Xildhibaan Mahad Dhoore oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo ka soo badbaaday weerarkani ayaa sheegay inuu ku sugnaa agagaarka masjidka gudaha hotelka SYL, kaasi oo mar qura maqlay rasaasta, mana garanaynin cidda xabadda ridaysa. Waan argagaxay, indhahayguna waa ay qabteen raggii rasaasta ridayay. Waxaan gudaha ugu cararay hotelka, isla markiina waxaa noo suurta gashay inaan ka soo baxsanno, ayuu yidhi maruu la hadlayay. Ilaa haddana waxay soo taraya wararka ku saabsan weerarkii ay dablada hubaysani ku soo qaadeen hotelka SYL habeennimadii xaleed. Saraakiisha booliska ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkan ay maanta soo saareen waxay ku sheegeen inuu howlgalka badbaadinta iyo sidoo kale ka hortagidda maleeshiyaadkani weeraray hotelka uu socday qaatay saacado badan. Saki Xuseen Axmed, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale bartiisa Facebook ku qoray inuu waqti badan qaatay howlgalkii iyo sidoo kale badbaadintii iyo ka hortagii maleeshiyaadkii habeennimadii xaleed weeraray hotelkani. Geesta kale xarakada Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay mas'uuliyadda weerarkani, iyaguna intaas ay ku dareen in xubnahooda kaga dagaalamaya gudaha hotelka SYL. Hase ahaatee ma jiro wax wara oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo saartay dhacdadani habeennimadii xaleed ay xarakada Shabaab ku soo qaaday hotelka SYL, isla mar ahaantaana ka duwan dhacdooyinkii hore xarakada Shabaab ay ka geysan jirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Weerarkan ayaa ka duwanaa weeraradii hore noociisa, kuwaas oo bilaaban jiray qarax lala beegsado albaabka amaba goobaha bartilmaameedku ka dhaco, taasoo lagu soo xiri jiray qof amaba gaadiid.
goobjoogayaal ayaa noo sheegay in kooxo hubaysan ay mar qura rasaas ku bilaabeen ilaalada afaafka hore ee hoteelkaasi ku sugan kadibna ay suurto gashay inay gudaha u galaan hoteelka. waa weerarkii ugu horreeyey ee muqdisho ka dhaca muddo 5 bilood gudahooda. amniga caasimadda ayaa muddooyinkii u dambeeyey u muuqday mid si hagaagsan loo adkeeyey. hoteelkan Iswael ayaa hore loogu bartilmaameedsan jiray weeraro noocan ah iyadoona khasaare weyn uu sababi jiray weerarka hoteelkaasi loo geysto. bartilmaameedsiga hoteelkan ayaa waxa uu noqon jiray mas'uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiin kale oo inta badan hoteelkan ku sugan